Assalaamu calaykum. Waa mar kale muuqaal cusub. Haddii ay tahay marka ku horeysa channelkeena soo booqato, waxaa kaa codsanaya channelkeena noo subscribe gareys. Haddii aad horena la joogto, ha ilaalin like na sarto. Maxaa yeelay like waxay noo tahay dhiirigelin. Mahadsanid. Kusoo dhawaada sheekadeena maanta. Brian waxaa haysta ciladaas ma wax zaid weyn. Ciladan waxaa waaye dhanka subscribe-kiisa. Brian YouTube-ka wuxuu leeyahay 94% dadku taawada subscribe kuma dhahan. Please dadka saddex ka mid ah subscribe inoo dheh. Hadaa inoo dhahdana ku maasantahay. waxay ahayd maalin aad farxad badan maxaa yeelay waxaa loo dabaaldegayay dhalashada sanadka cusub. Sanadkan wuxuu ahaa 2016. waxaa farxadii la qayb qaadanayay laba ka mid ah walaalahay, waliba mid ka mid ah iga yaraa. Anaan u weynaa habeenka. waxaan go'aansanay inaan hotel maxaa yeelay gurigeena ka soo fogaan habeenkii farxad darteed. dabaaldegayay awadnay. Saati waxaan soo hotel nagu dhow meeshii oo hotel aad u yar. waxaana leeyahay hotel qadiimi ah. saati gudaha ayaan soo gudi galnay. hotelkii waxaa jooga shaqaale, waliba waxaa ka sii kaligiis. wuxuu mid kaliis isku qoslaya qosol badan waliba intuu nala hadlinbo waa yaabnay. taasaato waxaan siin lacagta biilka habeenka. waxaan ka codsanay in noo sheego qolkan saxaleen caawa. asina wuxuu noo sheegay hotelkii inuu mid yar waliba ku yeelto 7 qol. wuxuu tilmaamay qolka ugu dambeeya. qolkan wuxuu qolkii 7aad. qolkii markaas aan soo gudgalnay walaalkii iga yar wuxuu aaday dhanka sariirta kaligii. waxaan soo harnay walaalkii kale iga yar oo noogu yara dhamaantiiba. walaalkii wuxuu iga yar mid aad u cabsi badan. waxaan go'aansanay sariirta saxdaniga. saataas wuxuu go'aansaday inuu sariirta saxdo. wuxuu sheegay inuu ka cabsanayo dooliga iyo xayawaanaadka kale. ana waxaa saxday fadhiga meesha yaallay. gurigan waxaa mid aad u kulul badan habeenka hotelkii. ma lahayn qaboojiso fiican. hal waxa ku tahay hal qaboojiso ah. dhankan waxaa soo kuleel daran. habeenkii dhan kuleel dartii waan saxan weynay. walaalkii waxaa mid soo cabsi badan. saati waan hurdnay. ana baara markaan hurdayno waxaan dareemnay kuleel zaid ah waliba shanqar aad u badan. neef daran. waan soo kacay anigoo isdhex walaalaha miyaa ku dhibay kugu ciyaaraya. saati walaalihii markaan eegay waxaan ku hurday ayaka. kadib cabsi daran ay sii gashay maxaa yeelay waxaan maqlay neef daran, neef aad u weyn oo waliba agteeda ka neefsanaysa iyo kuleel daran. inta kadib anigoo meelaha eegaya ayaan waxaan arkay argagax badan. nin igu soo eegay dhankay qaboojisadii. waliba wajigiisa uu yahay waji aad u cabsi badan. inta kadib tooshka soo qaatay si aan si fiican arko wajigiisa. mobilkeena la soo baxay si aan u waco booliiska. saataas waxa mid soo eegaya waliba wajigiisa ka muuqata cabsi daran. wuxuu nagu yiri oo ku barayay booliiska ay bixin wax kuma yeel doono kuma wax yeelanayo. inta kadib anigu aamin wuxuu hadlay maxaa yeelay wajigiisa waxa ku muuqatay arin waxyaalo aad u naxdin badan. inta kadib waan qeyliyay walaalihii aan soo kacay. asina wuxuu soo gudgalay kan qolkii si uu noo qabsado anaga. waan ka soo cararnay. waxaan wacnay booliiska waliba sidii degdeg ah. nasiibnay booliisku ka soo gaarin gurigii. hotelkii ay yimid. qolkii markii soo gudgalay dhammaan ka weyn qolkii. anayna wuxuu tilmaamnay meesha ku soo baxay ninkii. markii meesha la galayna waxaa la ogaaday ninkii inuu isku deganaa meesha in muddo ah. waliba wuxuu ahaa nin dilaa ah dadka dil jiray. fajac iyo makaak anigoo yaaban ninkii waa la xirayba. fajac iyo makaak ayay qabsaday maxaa yeelay waxaa la yaabaa inta u dhacday maanta. saata waxay soo wacay booliiskii ayagoo ii sheegaya ninkii inuu ahaa nin dilaa ah waliba hotelka ku dilay waliba qolkaan deganeenba ku dilay 2 gabdhood walaalo ah. waa yaabay ninkan waxaa loo xukumay in muddo ah. waxaan loo siiyay dhanka maxkamadii si loo xukumo. dadkuna wuxuu ku dili jiray muddo ku tijaabkiisa. markii maxkamadii laga soo dhamaaday waxaa loo xukumay xabsi daa'im oo wali ku soo bixi doon. ani walaalay habeenka aad baan u sii wacnayn maxaa yeelay ninku wuxuu deensi hurdla ninku waxa mid dilaya.